السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي ميل بدنيدا كجوكتان وساحبكين عيل ترابوي إن أصحابته برنامج كي جعلك كوسو دوادا إن مانتيان إذين وضع شنقفات جعلك جلبها كجله ومرحية أن إذين وضع هي أن إصلا صعنو ويل كان وحول لي هاي جبر أيا سائد جعل صاحب عيل ترى وحن جعل هاي جبر كله مركب محان سمية إن anigu fikradeeda anigu teeda markii aan ka hadlo waxaan ku dheelaha kabtan qofka ku jecel fursad sii tan ku jecel xageeda aaso tan ku jecel adigay ku daryeelaysaa adigay ku dabiibaysaa adigay naxariis fara badan ku muujinaysaa balse tan aad jeceshahay adigay wax walba kaaga baahan tahay dabcan hadana laga sii yaabe inay qoftaas qof kale ay sii jeceshahay oo xiriir kala dhaxeeyo marka waxaan ku dheelaha fursad qaali ah hortaada taalo ka faa'iideyso qofta ku jecel isku day inaad fursad siiso dabcan jaceelka wax yimaado marka aad fursad siiso laga yaabay adiga inaad jecelaato ayada marka saaxiib aad u mahadsan tahay fikradaada halkan kala dhaxbax okay qofka xigo gabadhan waxay taagan tahay saaxiib hadda ma awoodo inaan xiriir jecel aan sameysto waxaa jira wiil igu dhaho xiriir jacayl aan sameysano balse isug ayaan dhahaa haddana ma awoodo inaan jacayl sameysto walaashay fikradeeda aniga waxaan ku dhihi lahaa jacaylka inaad sameysato wuu fiican yahay laga yaabay adiga hal qafood inuu qalbiga kaa jabiyey hal qafood oo qalbiga kaa jabiyey dartiisna aragoo dhanna dumacdo dabcan wax fiican ilama aha laga yaabay midka hadda ku dhahayo xiriir ila samee inuu adiga ku dabiibo dhaawici hore aad soo marta ka dabiibo oo diyaar u yahay laga yaabe wax walba way tagaan wax soo noqdo ma jiro qof hadii uu xun yahayna qofa fiican qof hadii uu ku xumeeyana qofa adiga ku dabiibayo dabcan waxaan ku dhihi lahaa hal qafood oo noloshaada qaribay ama jacayl ku siin waayay ama qalbiga ka dilay dartiisa ha u nici noloshaada dhan naftaada mudnaanay ka mudan tahay qalbigaaga naxariis uu ka mudan yahay dabcan waxaan ku dhihi lahaa qofka bini'aadamka qalbigiisa waa la beertaa adiguna qalbigaaga hadii la beeranayo hadiidin beerta sideeda banaan waxay ku soo baxdaa markii biyo lagu shubay soo naaxdaa ay soo baxdaa dalagana ay soo saartaa dabcan anigana waxaan ku dhihi lahaa wiilkan fursad sii asiga qalbigaaga abuuranayo adigana isku day inaad naxariis u muujiso walaashay naftaada inaad daryeeshid waa muhiim waxaan ku dhihi lahaa noloshii hore ku soo martay cashir ka qaado dibna ha fiirinin wixii horena iska ilaaw waxaan ku dhihi lahaa nolol cusub sameyso ee ku soo dhawaa walaashay aad u mahadsantaa halkaas inta fikradaada kala dhaxbaxda ayaan jeclahay qofka xiga asxaabta qofkan waa wiil wuxuu leeyahay xiriir su'aal oo dhahay qof aan jecelahay oo aan ii ogeyn sidee aan u dareensi karaa jaceelkeyga kabtan anigu fikradeeda hal mid ayaan ku leeyahay qofka aad adiga jeceshahay asigana ku ogeyn waxaad u dareensi kartaa qofkaas marka hore waa inaad la saaxiibtaa marka aad la saaxiibto waa inaad naxariis fara badan aad u muujisaa waxyaalo aanan hore loogu muujinin waa inaad u muujisaa mar walba aad ka agdhawaataa mar walba qoftaas aad caafimaadkeeda la socotaa qoftaas mar walba waa inaad hadallo macaan aad dhahdaa qoftaas waa inaad mar walba aad daryeeshaa qoftaas waa inaad mar walba aad respect garaysaa madaxa korkiisana aad saarataa marmarka qaar waxaa dhici doonto inay ku dhahdo hadal aad adiga jeclaysan weyso dabcan adigana waad inaad muujisaa kalsooni aad u fara badan dulqaad aad u fara badan marka aad dulqaadatid ogow adigana wax walba way ku hagaagayaan waxaan ku dhihi lahaa qoftaas si aad ugu dhawaato falkeeda gal dabcan ayadana way ku dareemi doontaa wax walba ay dhahdo hadal walba ay xumaana ay ku dhahdo hadii aad wanaag ugu badasho hadal walba wanaaga hadii aad wanaagiisa aad u sii raaciso aad respect garayso aad xishmad u muujiso aad daryeel aad u muujiso inaad caafimaadkeeda aad ka fikirto aad u muujiso dabcan waxa xaqiiqo ah inay ku dareemi doonto waxaan ku dhihi lahaa kabtan guuleystaha mar walba noqo horay u soco niyadana mar walba khayr u sheeg aad u mahadsan tahay qofka xiga asxaabta qofkan waa wiil wuxuuna leeyahay gabar ayaan jecelahay ayaduna waxay iga jirtaa meel fog dabcan sidee u soo dhaweysan karaa ama iskugu imaan karnaa
dabcan jaceylka waa kan labada qafood oo kala fog isku keena. jaceylka waa labada qafood oo fog midka mar walba kalsoonida quruxda badan dhaxdhiga. kabtan labadiina waxaad iskugu imaan kartiin kalsoonidiina inaad sii balaarisaan oo waxaad iskugu imaan kartiin labadiina inaad ilaa iyo heer mustaqbal aad isla gaartaan oo ilaa heer guur aad isla gaartaan. waxa kale iskugu imaan kartiin adigu waxa ku wada kabtan qalbigaaga qafaad jeceshahay. dabcan maanta haddii aad awood u leedahay meesha ayada ka dhowdahay inaad xataa ayaamaho dalxiis aad iskaga tagto, haddii aad awoodo waa tagi kartaa si aad qaftaas si leefa aad ugu aragto adiguna qalbigaaga xasilooni uu u dareemo. dabcan waxaan ku dhihi lahaa kabtan haddii aad heer mustaqbal isla gaartaan way fududaanaysaa si aad isku aragtaan ama aad isku hanataan. noloshana ma ahan midii mar walba laga niyad jabaayo. ninka ragga hadaf ayuu leeyahay, hadafkiisa sida uu u gaaro wax walba wuu u sameynayaa. wada dheer oo qodax badan ay daadsantaha ku sugayso. dabcan ninka raggaana waa midkii u dulqaadan lahaa. kabtan waxaan ku dhihi lahaa wax walba oo aad jeceshahay ilaahay ha kuu sahlo, labadiinana sida aad isku arki lahaydeen ilaahay ha kuu fududeeyo. hore u soco ayaan ku dhihi lahaa kabtan. insha allah anagana waan kusoo duceynaynaa iyo asxaabta keep going brother. qofkan waa wiil wuxuu leeyahay gabar ayaan jeclahay iyadana way i jeceshahay balse dhib ayaa jira sida usoo qoraalka waaye. wuxuu leeyahay dhib ayaa jiro oo ah qalad ayaan ka galay haddana kalsooni daro ku dhacay maxaan sameeyaa. sida usoo qoro waa qoraalka. kabtan anigu fikradeeda hal mid ayaan ku leeyahay. gabadhaas aad qalad ka gashay haddana aad qalbiga ka jabisay ayada ku jecel adigana aad jeceshahay. dabcan horta ma haboono qof aad jeceshahay inaad qalbiga ka jabiso xataa qof aad necban tahay. muhiimadda waxay tahay qofku jecel qalbiga lagama jabiyo. qofka ku necabna waaba la jeclaadaaba. laakiin hal mid ayaan ku leeyahay gabadhaas waxaan ku dhihi lahaa isku day inaad kalsooni fara badan aad siiso. isku day qaladka aad shalay ka gashay inaad ka daweyso. isku day shalay waxyaalo aanan ayada kaaga baranin inaad sameyso. midaasoo ah inaad mar walba u dhawaato, inaad mar walba aad wacdo, inaad mar walba aad xiriiriso, mar walba inaad caafimaadkeeda aad ka fikirto. dabcan mar walba inaad farxadeeda aad ka shaqeyso. kalsoonidu waa shay muhiim ah. qofka bilaadanka in qalbiga laga jabiyo wax fiican ma ahan. siiba haddana dumarka in qalbiga laga jabiyo wax fiican ma ahan. run ahaantii anaga haddii aan ragnahay sida aan u adkeysan karno ama dhaawaceena aan u qarsan karno dumarka uma qarsan karaa. kabtan waxaan ku dhihi lahaa qaladka aad gashay adigaa sixi karo. qaladka aad gashay sax. waxaan ku dhihi lahaa isku day inaad mar walba aad la hadasho ama taleefon aad kala hadasho ama aad la kulanto inaad dhahdo isaamax. ha ka caajisin inaad dhahdo iska kee cafi. ha ka caajisin. arno marka siiba dumarka mar walba way iska calool jilcan yihiin. ayaguna way iska sabar badan yihiin wayna dulqaad badan yihiin. inkastoo jiro inay inta badan ay iska maseeraan haddana sidaasay tahay ma niyad xumo. kabtan marka waxaan ku dhihi lahaa mar walba niyadda u dhis. mar walba niyadda u dhis. hana ka caajisin tii ahayd inaad mar walba raali geliso oo aad dhahdo qaladkii aan kaa galay cafan. kabtan aadaad u mahadsan tahay. asxaabta barnaamijkeena intuu ku egyahay waxaan idin leeyahay tiktoka follow hala soo dhaho. sidoo kale youtube-kana subscribe-ka hala soo saaro hana la share gareeyo. haddii aad jeceshahay dabcan aniga kuma faraayo wax walba aad sameynayso. aadaad u mahadsantihiin. bye bye.